mahad oo dhan waxaa u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala. kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya. waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay uga soo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya. dhowr iyo 60kii sano ee soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hanaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo 21kii sano ee ciidamadu ay talada hayeen. dhaqankaas waa mid ay ku faani karto ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay. mudanayaali marweyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dowladnimada soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Jabuuti, madaxda iyo shacabka reer Jabuuti mahadiha ka gaartee dalkeenna xumaanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda. 1 dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo. waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Somaliland. waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka 3 xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono. 4 taabagelinta hanaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada. 5 taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanasul. taabagelinta hanaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga. 7 dhismaha garsoor hufan, madax bannaan, isla markaana haqabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeenna Soomaaliyeed ay qabaan. cadaaladdu waa udub dhaxaadka Soomaali heshiis ah. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah waxaa kale oo hiraalkeenna siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. himilooyinka dowladnimada ay tigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma ruboobi karaan haddii aanan dunida
heshiis la noqon dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda kow inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga si gaar ah dalalka geeska afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadinno shacabkeenna labo inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka deriska ah kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada aan nahay intaba in ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin saddex xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale dadka Soomaaliyeed waa kuwa lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka ayagoo dalal badan oo Afrika bariga dhexe iyo weliba galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaax la ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin si gaar ah waxaan yoolkeena ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhaxeeya dalalka guud ahaan gaar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahaaneed ee geeska Afrika waxaan iyana madda asaasi ah noo noqon doona siyaasad arrimadeed oo dhaxdhexaada isla markaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeena iyo mid ahaanshaha geyigeena mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh sameeyay horumar ballaaran haddana waxaa weli taagan caqabado aad u ballaaran oo u baahan inaan iska kaashanno sida aad la socotaan waxaa haatan gobolka geeska Afrika ka jira abaaro ba'an oo halis ku haya 100 milyan oo qof Soomaaliyana waxay u nugushahay abaartaas iyadoo lagaba cabsi qabo in meelaha qaar ay macaluul ku dhufato abaaraha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda sanad walba waxaad moodaa inaan u dhaxayno 6 bilood oo biyo dhaamin ah iyo 6 bilood oo aan la tacaalayno fatahaad ka dhalatay roobab zaa'ida iyo webiyada oo biyo zaa'ida wado waxaan arrimahaas sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday sida isbeddelka cimilada burburka kaabayaasha dhaqaale iyo nuglaanta hay-adaheena dowladnimo sidaas daraaddeed dowladdeedu waxay dhisi doontaa xukuumad u xil saaran arrimaha bay-ada marka laga eego dhibaatooyinkaas waxaa lagama maarmaan ah inaan iska kaashano dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxaa lama huraan ah inaan dhidibada u aasno nidaamyo xoojin kara hay-adaheena gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah sidaas daraaddeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh marka laga yimaado la tacaalidda masiibooyinka waxaa sidoo kale himilooyinkeenna horseed u ah kobcinta dhaqaalaha dalkeena howlaha
hortabyada leh ee aan abbaari doonno waxaa ka mid ah inaan barnaamijka deyn cafinta ee haatan maraya bardhexaadka loo yaqaano decision point aan gaarsiino bartilmaameedkiisa ah completion point sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqeyno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta africa bangiga horumarinta islaamka iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha lacagta deynta ah Soomaaliya ku leh waxaan kaloo qayb weyn ka noqon doonaa waxaa qayb weyn ka noqon doonta taabagelinta barnaamijka deyn cafinta inaan adkeyno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeena hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeena alla ku manaystay khayraadka mudanayaal marweyn madaxda sharafta leh dowladayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yiraa waxqabad waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed waxaanan ku dadaali doonaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhaweeya mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed ay higsanayaan muddo aanay mudan yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa mahad celin ballaaran oo aan mar kale u jeedinaya shacabka Soomaaliyeed oo wakiiladoodu ay mar kale isaareen mas'uuliyadda sare ee dalkeena yididiilada ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan dowlad ka tarjumaysa himlooyinkooda waa mid aan har iyo habeen ku shaqayn doono anigoo kaashanaya taageerada shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo xuquuq dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin saaxiibada Soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeena ee ku salaysan Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah waxaan ku soo gunaanadayaa aan cambaaraynaynaa ugu dambeyntii xalay dadkii Soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgeed waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka caalamka ee Soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnaay 32 sano aan soo dhaafnay dalkeenu waa dhaqaaqay waa socdaa in yar baa inoo dhiman waan ka baxaynaa waxaan sii codsanaynaa in ay dadka Soomaaliyeed isku duubnaadaan isu tanaasulaan dhammaanteedna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqeyno berri si aan u xaqiijino Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh